mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo xubno kale ayaa waxay subaxnimadii hore saaka kormeer shaqo ay ku tageen madaarka diyaaradaha magaalada boorama. socdaalka mas-uuliyiintan ayaa waxa uu daarnaa sidii loo howlgelin lahaa garoonka muddada dheer xidhnaa iyo sidii loo sugi lahaa xuduudaha kala duwan ee garoonka. waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay maamulaha garoonka diyaaradaha magaalada boorama. waxaan leeyahay gudoomiye ku soo dhawow madaarkii boorama, waad aragtaa hawlihiisa. waxaynu u baahannahay inaynu wax ka qabanno si aynu hawshiyan ay nooga dhammaato mar keliya. meeyarka magaalada boorama salebaan xasan xadi iyo sidoo kale taliyaha qaybta ciidanka booliiska gobolka awdal oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay ku dheeraadeen muhiimadda uu leeyahay madaarka, iyaguna bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan ilaalinta iyo dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada boorama. innagoo wada jir ah ayaynu ka howlgelaynaa hadduu ilaahay idhaahdo. shirkadahana waxaan u caddaynaynaa xukuumaddu waa u diyaar, horena diyaar bay ugu ahayd, imikana waa u diyaar. dadweynaha reer awdal dibad iyo gudana waxaan leeyahay ka qayb qaata ilaalintiisa, soo dhisidiisa. waxa weeye dadku markay wax qabsadaan ayaa wax lala qaban karaa. waa ogtihiin wax qabad badan oo maanta Soomaaliland ka hirgalay, intooda badan dadka shacbiga qabsaday, intii ka dhinaydna dawladda buuxisay. nin walba waraaqeer hoosta ku haysta wax la wax ka soconaya ma jiro. cid alla cidii ku soo xadgudubta garoonka diyaaradaha dhulkiisa iyo badka oo leeyahay waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo degdega oo waafaqsan sharciga. dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay badhasaafka gobolka awdal mudane maxamed axmed caalin tiimbaro. waxaanu doonaynaa waa faa'iido uu gobolku leeyahay. ciidanka booliska waxay ku amray cid kasta oo uu golo laynkaa khadkaa la marinaya hadalla ka keenta waa soo qabanaysaan, guddi nabadgelyo ahaan baana horkeenaysa. waxa weeye haddayna si wada jiro wax uga qaban garoonkaa dadweyne iyo ciidanba dee weligii inoo dhismi maayo. wax kastoo ay nagu qaadanayso hawshaa waxaynu ku dhammaynaynaa toddobaadada soo socda in airboodka kaabadihiisa wada taagnaado. fensinka wuu soo socda wuu imanayaa inaynu isna ku xidhanno insha allah. markaynu intaan dhammaysanno mustaqbalka waynu rajaynaynaa in si degdega ay noogu soo fadhiistaan diyaaraduhu. dadweynaha reer awdal waa albaab iyo dariiq inoo soo furmay. ashkaasta markaa inaga qashqasaasaynta inaynu dhaniga soo jeedaan doonaynaa. xukuumad ahaan wuxuu u baahan yahay airboodku diyaar baa laydin leeyahay. intaasi kadib mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay si toosa u tageen goob cusub oo loo dhigi doono khashinka laga soo qaado magaalada boorama, maadaama godkii hore khashinka lagu qibi jiray ee magaalada boorama uu buuxsamay islamarkaana ay magaaladu ku fiday. barbilowga godka cusub ee ku yaala galbeedka magaalada boorama ayaa isla maanta banayntiisa la bilaabay. meeyarka magaalada boorama, taliyaha qaybta ciidanka booliiska gobolka awdal iyo sidoo kale badhasaafka gobolka awdal oo halkaasi ka hadlaya waxay fariimo kala duwan u direen bulshada iyo sidoo kale shirkadaha qashinka qaada. waxaan mahadnaq gaar u jeedinayaa gudoomiyaha gobolka awdal, maayirka magaalada boorama, taliyaha qaybta gobolka iyo taliyaha aaga galbeed militariga qaranka dhammaantood. insha allahu tacaala bulshadii maxaan ku dhahday magaalada boorama ee khashinkaasi ama qiiqaasi uu dhibayeyna waxay maanta kadib ka nasan doonaan maxaan ku wixii dhibaato ay dareemayeen. halkanoo runtii magaaladii ka soo fog oo iyaduna aan rajaynayno maalinun maalmaha ka mid a in iyadana laga sii guuri doono haddii alla yidhaahdo markay magaaladu soo gaaro. godkani wuxuu ku yaallaa waqooyiga magaalada. waxaanan ugu talagalnay 4 darif ee magaalada annagoo ku xisaabtamayna seasonal calendarka ama habka kolba hawadu u dhacayso ee dabaysha ay u qaadayso qashinka ama wixii pollution ee soo baxaya oo kolba la isticmaalo godka ku habboon xilliga. shirkadaha qashinka mas'uuliyadda ku wareegaysa hadeed waxa weeye shirkadaha private-ka ah policy bay leeyihiin lagu maamulaa. hadday kuwa qashinka yihiin, hadday kuwa biyaha yihiin, dhulka iyo management-kiisa dawladda laga rabaa. qashinka iyo management-kiisa iyo siday u isticmaalayeen iyo siday u nadiifin lahayn meeshaana ay u nidaamsan lahaayeen ee godadka u hagaajisan lahaayeen iyaga laga rabaa. godku waa idin diyaar kana waqooyiga magaaladu, kuwii kalena waa la gelayaa. qodisteedii iyo nidaamkeedii iyo kala nidaaminteedii liquidka iyo daraygaba shirkadaha qashka looga fadhiyaa.
waxaad dareemaysaa magaalo inuu qashinku buuxo waxaad moodaa kabaasitigii labada shirkadood inuu ka badanayo qashinkii iyaga kala cadeyn doona inuu kabaasigu ka badan yahay oo shirkad kale loo baahan yahay iyo inay mayna dayacnaan kala tahay taasuna waxa weeyaan dabagal xoog lan ku sameeyna haduu la yiraahdo imika se waxaan taaganahay goob buura ah dadweynaha waxaan leeyahay waxa la wixii amni darro keenaya godkaas kala bilaabay maamulkii heer gobol noocyada ciidamada kala duwan mas'uuliyiintii gobolka oo dhan ay u joogaan inaan laga horiman cidda ka hortimaadana kulay sharciga ayaanu la tiigsan doonaa insha Allah taala sidiisabana ilaa gurigan dhisane aad adigu leedahay ardiyad baa laga qaadaa ardiyadan waa kirada dhulkan aad degan tahay dhulka dawladdu baa wada cid wax liba ma jirto waa maal siiyeen marka inaynu dhulka u fahmno ilaahay bay noo ballan qaaday dhulku inuu nolosheena iyo geerideena bay nagu filan yahay aad quraana waxayna leedahay wajacalna al-ardha kifata ahya'an wa amwata dhulka waxaanu ka yeelay mid ku filan noloshiina iyo geeridiinaba marka inaynu ka iimaan laana maaha zikasaba bulshada ku dhaqan deegaanka buurta Faaraxyood ayaa waxay hore cabasho ballaaran uga muujiyeen godka khashinka balse waxay maanta si weyn u soo dhaweeyeen tallaabada cusub ee looga rarayo godka khashinka waa Imraan Xuseen Aadan wararka Ariel TV boorama.